اللهم لا حول لي ولا قوة إلا بك، عليك توكلت وإليك أنبت وإليك المصير. السلام عليكم، أهلا وسهلا. kusoo dhawaada bodcastiga Dr. Qalam Podcast. magacaygu waa Fawzi Cali Maxamed. waxaan mowduucina maanta kaga hadlaynaa sababta aan u sameynay bodcastigan Dr. Fawzi Qalam Podcast. noloshu aadanuhu waa mid u dhaxaysa baahi iyo baraare, cudur iyo caafimaad, leeleel iyo ladnaan, kulan iyo kala tag. liibaanuhuse waa qofka markasta magangashada Allah subxaanahu wa tacaala. inuu noloshaada ku weynaado Allah subxaanahu wa tacaala oo aad isweydiiso sideed ku hanan lahayd jacaylka Allah subxaanahu wa tacaala. waa wadada keliya ee kuu fududayn karta inaad qabsato albaabada guusha ee aan duugoobaynin. haddaba su-aasha isweydiinta mudane ee inaga dhex guhaysta dhammaantiin waxa weeyaan, mid kasta oo inaga mid ah waxa weeyaan, sideed Allah subxaanahu wa tacaala u barataa si aan ugu noolaado liibaan adduunyo iyo mid aakhiro. jacaylka sidiisuba wuxuu imaadaa marka aad barato oo aad dhuuxdo oo aad u fiirfiirsato waxa aad jeclaanayso. qofka haddaad jeclaanayso sifo muuqato iyo mid qarsoon wax uunbaa ku soo jiidanaya. Allah subxaanahu wa tacaala si aan u jeclaano waa inaanu baranaa sifooyinkiisa, magacyadiisa iyo macnaha ay ku fadhiyaan, iyo inaad ogaatid sababaha ka dambeeya inuu ku abuuro Allah subxaanahu wa tacaala. intaa marka aad barato furayaasha mid ka mid ah baad jeclaanaysaa. qur-aanku waa nuxurka iyo dhumuucda uu ilaahay subxaanahu wa tacaala u hibeeyey xabiibkeena Muxamed sallallahu calayhi wasallam, kuna soo ururiyey macnaha nolosha, kaasoo inoo fudaydinaya barashada Allah subxaanahu wa tacaala. kaasina waa furayaasha ugu xeesha dheer ee fududaynaya inuu adduun Allah subxaanahu wa tacaala u jeclaado. barashada diinta iyo fahamkeeda iyo inaad barato qofku wuxuu barto oo uu dabaqaana, intaas oo isbiirsataana waxay keentaa jacaylka Allah subxaanahu wa tacaala oo maalin walba dhibic cusub qalbigaaga ku sii dhibcayso. kadibna adoo mucaashaqa oo intaad jacayl dhaaftay caashaqay rabbigii ku abuuray subxaanahu wa tacaala ayaa sidaa kula kulmi maxbuubkaagii Allah subxaanahu wa tacaala. waana intaynu u soconaa dhammaanteen. qodobadan oo faahfaahsan ayaad kala socon doontaa bodcastiga Dr. Fawzi Qalam Podcast insha Allahu tacaala. jazaakum allahu khayran. assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh. allah inagu kulmiyo jannadiisa yowma laa yanfacu maalun walaa banuun ilaa man ata allaha biqalbin saliim. subxaanaka allaahumma bixamdik ashhadu an laa ilaaha illaa anta astaghfiruka wa atuubu ilayk.